galabta annaga waxay noo tahay maxaa la yiraahdaa galab runtii qurux badan oon muddo soo dhararayna dheer runtii waxaa ka soo sheekeeyey director Mahdi iyo waxaa ka soo sheekeeyeen Yaasiin jarabkaan u soo marnay aqoonsiga heshiiskan iyo nuxurkiisa hoosana abukaata Carafaad oo runtii si aad u qiimo badan uga soo shaqeeya asna aad uga sheekeeyey laakiin waxaan rabaa galabta inaan meeshaan message ka dirno maadaama aan u dhitinaynay in badan runtii identity sax oo la aqoonsan yahay maanta gacanta Soomaaliyeed buu ku jiraa waxaan banaanka soo waarideen ama meelo kale ka keenayno ma aha agaasimaha ama maareeyaha hay'adan waxaan uga mahad celinayaa in meeshaan asaga iridkiisa soo garaacay lahayn asagoo horteen iridkeena soo garaacay yiri warbahalkii aad u dhutinayseen aad u la aydeen boqolkiiba 90 in ka badan customerka u la aydeen waa kana kaalaya oo agtiinu yaala oo xataa waxaan diyaar u lahay inaan xaruumihiina soo dhax dhigo runtii waxaan rabaa inaad si gooni igu sacbisaan agaasimaha waxaan rabaa marka dadkii bangiyada u dhibanaa ama identity u dhibanaa runtii in maanta la isku soo kor saaro labadiiba farxad bay ii tahay marka inaan noqono bangiyadii caaradka noqday inay hirgeliyaan oo customerkooda culayskaas haystay runtii in maxaa la yiraahdaa aan noqono aad bay aniga farxad iigu tahay teamkayga IBS oo dhan ay farxad ugu tahay bulshadu waa tiro badan tahay qaar baa baasaboorka de awooda sida la sheegay aniga bulshada inta ugu mudneed oo ugu nugleedaan u ololeeya inta badan inay financial inclusionka ama habka dhaqaalaha waddanka ay qayb ka noqdaan waa dadka tabarta yar iyo dhalinyarta Soomaaliyeed maareeyaha idin xambaarsan message khaas oo asaga idin sii doona iyo bishaareen gooniya laakiin markaan wixii ka dambeeya haddii aad u lugayn jirtay ama meelo fog ID ka dooran jirtay hadda xaruntii bangigu diyaar kuugu yahay si qiimo badan baan idinku soo dhaweynayaa waxaan kaloo rabaa dad ka badan 4 milyan oo agaasimo guuro oday u yahay waa diaspora ayagana in ID-ga diyaar yahay guuruna naga gaarsiisaan rabnaa oo meelahooda loogu keeni doono safaaradahooda insha Allah oo jaaliyadahaas tirada badan ee u ololaysa maalin walbaba aad u sheegtid inuu ID-ga usoo meel dheer ka jirin ID-ga u safreen ee wadamo iyo qaarado iyo bada u mareen inuu hadda diyaar yahay u sheeg inta naga gaarsiin haddaan message kaloo idin siiyo financial ku saabsan haddaa ogtihiin muxariga dhaqaalaha waa bangiyada weeye dadkeen waxay aad u isticmaalaan asaaliib kale oo isada lacagtii waxba uga faa'iideyn waxaan leeyahay maanta ID-giina waa kan waa idin diyaar bangiyada lacag ku soo shubta dhaqaalaheena aan xoogsanno kuwa banaanka naga maalgeliyana waxaan ku waaninayaa inay dhulkooda hooyo maal gashadaan magaalo ka maanta magaalooyinka Soomaaliya oo maanta waa shidan yihiin aad u qurux badan yihiin waa wada nabad soo maal gashada dhulkiina imaada kuwa banaanka joogo kuwiina gudaha joogana si aad dhaqaalaha uga faa'iidaan bangiyada dhigta waa ogtiin maanta markaad deyn doonatid bangi u baa ka doonan kartaa marka artina halabuurkaad hirgelisid bangi u baa ka doonan kartaa haddaan bangiga lacag la dhigan ama loo tagin xagee ka imaanaysaa meeshaad beertaada xoolahaaga webiyadaada iyo badahaada aad ka maalgashan lahayd soo marka waxaan idinku waaninayaa inaad bangiyada dhigataan hadday ahayd dhibaatadu ID-ga qayb ka ahaa maanta waa la xalliyo ujeediin waxaan leeyahay ku soo yaaca dhalinyaro luqadiina idin kala hadlayahay ku soo yaaca bangiyada wax soo dhigta soo dhawaada